أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. يقول العلامة محمد بن محمد الداود السنهاجي رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. فالاسم اسمك يعرف هو اسمك waxaa lagu gartaa بالخفض hoos dhig ayaa lagu gartaa, والتنوين laba shaqalna waa lagu gartaa, ودخول الألف واللام ألف iyo laam gelitaankoodana waa lagu gartaa اسمك, وحروف الخفض hoos dhiga xuruuftiisana waa lagu gartaa. wahiya xuruuftaas wax hoos dhigaysa min wa ilaa, min iyo ilaa wey, wacan wey, wacalaa wey, wafii wey, waruba wey, walbaa wey, walkaafu kaaftii wey, wallaamu laamtii wey. wa xuruufi alqasami dhaarta xuruuftiisana waa lagu gartaa. wahiya xuruufta dhaarta loo adeegsado alwaawu waawdii wey, walbaau ba'dii wey, wataau ta'dii wey. weli waxaanu ku guda jirnaa muqadamadii iyo casharadii ugu horreysay kitaabkeennii ajruumiga ahaa. waxaanu soo qaadanay maa huwa alkalaam cinda annaxwiyiin, naxwaha muxuu u yaqaanaa kalaam, waxa kalaam la yidhaaho naxwooleyda agtooda iyo shuruudda ay u xireen ayaan soo fahamnay. oo waxaanu nidhi kalaam waxaa la yidhaha allafdu almurakab almufiid bilwadc, waa shuruudda afarta ah midkii oofsada. waxaa kaloo aanu soo barannay aqsaamu alkalaam alcarabi, kalaamka carabiga ah qaybaha uu u qaybsamo, oo inuu kalaamka carabiga ahi u qaybsamo saddex: isim, ficil iyo xaraf. casharkeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay waanu qaadanaynaa calaamaatu lism. ereygan inuu isim yahay maxaan ku garan karaa? kani inuu ficil yahay maxaan ku garan karaa? kani inuu xaraf yahay maxaan ku garan karaa? marka calaamaadka isimka inta aanaan gudagelin waxaan ka hadlaynaa aqsaamu lism. horta isimka naftiisu bal inta waxa uu u qaybsamo, ilaa hore waxaan usoo tacriifinay oo hore aan usoo qeexnay waxa isim la yidhaaho. waan soo tacriifinay, waan soo qeexnay. waa kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam takhtarin biaxadi alasminati halaata. waa kelimo macno ku tusisa saddexda zaman mid ka midana aan ku tusinaynin. sidaasaanu ku soo garannay inuu yahay isim. isimka marka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood: alismu daahir, alismu almudmar, alismu almubham. saddexdaasuu u qaybsamaa isimka: isim daahira, isim mudmara oo damiir loola jeedo, iyo alismu almubham isim la yidhaaho mubham. saddexdooda marka maxay kala yihiin? maa huwa alismu daahir? maxaa la yidhaahaa isim daahir ah? isim daahir maxaa la yidhaaha? alismu daahir waxaa la yidhaahaa waa maa yadullu calaa musamaahu biduuni qariinati silatin aw ishaara. maa yadullu calaa musamaahu biduuni qariinati silatin aw ishaara waa ereyga ku tusiya shaksigii lagu magacaabay, shaksigii uu magaca u ahaa ereyga ku tusinayo, biduuni qariinati silatin aw ishaara, isagoon u baahnayn fartaagid iyo jumlo kaleoo silo la yidhaaho ama hadal kale in la daba dhigo aan u baahnayn. kaasa waxaa la yidhaha alismu daahir. tusaale ahaan magacaaga haddii la yidhaaho maxmuud, tusaale wey, magacaaga maxmuud haddii lagu yidhaaho oo maxmuudkiina haddana la garanayo qofaa taqaano uu yahay maxmuudkii, haddii lagu yidhaaho jaa'a maxmuudun, maxmuudaa yimid, maxmuudkaasi ma wuxuu u baahan yahay farta in lagugu taago?
oo la yidhaha maxmuud kan uma baahna haddii maxmuudka wel hore aad u taqiinay lagu yidhaha jaa maxmuud maxmuudaa yimid horaad ka fahmi maxmuudka waxa loola jeedo ilaa waa maxmuudkii aad taqiinay uma baahna in farta lagu taago oo la yidhaha maxmuudkaas uma baahna jumlo sila ah in lagu yacni lala xidhiiriyo oo la yidhaha maxmuudkii sidaa iyo sidaas ahaa uma baahna marka kaa waxaa la yidhaha ism daahir waxaa la mida aldariiq almasjid alqalam alkitaab alcilm alnaxw alfiqh waxaasoo dhan waa ismi daahir maxaa la yidhaahaa isimka kale oo la yidhaaho alismu اlmubham alismu اlmubham waxaa la yidhaahaa maa yadulu calىa musamaahu maa yadulu calىa musamaahu biqariinati ishaaratin aw sila maa yadulu calىa musamaahu biqariinati ishaara aw sila waa midka ku tusinaya shaksigii lagu magacaabay laakiin muxuu u baahan yahay biqariinati ishaara waa in farta lagu taagu u baahan yahay oo gacanta lagu kaalmeeyo haddii kale ma la fahmi karo ulajeedadiisa ama wuxuu u baahan yahay jumlo sila ah in la daba dhigo jumlo sila ah in lala xidhiiriyo tusaale ahaan markaan ku idhaaho cajibtu min haada cajibtu min haada kan ayaan la yaabay qofkanaan la yaabay haddii farahaan iska laabto in idhaho cajibtu min haada qofkanaan la yaabay haadaada waxaan ula jeedo lama yaqaano qofka aad la yaabtay qofkii wuxuu ku leeyahay farta noogu taag kan wuxuu u baahan yahay fartaagid in lagu kaalmeeyo oo in idhaaho cajibtu min haada kan ayaan la yaabay waa inaan idhaho farta ku taago kaa marka u baahan in wax lagu kaalmeeyo oo si kale aan loo fahmi karin ilaa ishaare in lagu kaalmeeyo maahane maxaa la yidhaha alismu اlmubham maa yadulu calىa musamaahu biqariinati ishaara aw sila mubhamaa la yidhaha ama wuxuu u baahan yahay silo jumlo kale in lala xidhiiriyo tusaale ahaan asmaa ulmawsuulaad oo kale markii aan idhaaho jaaءa aladii kiyaa yimid jaaءa aladii intaa haddaan ku gaabsado oon idhaaho jaaءa aladii kiyaa yimid oon iska aamuso waxaan ula jeedo ma la fahmayo kiyaa yimid dee qofku wuxuu ku leeyahay kee hadalka noo faahfaahi oo noo jilci maxaa ula jeedaa jaaءa aladii kiyaa yimid weli dhegtaa sii taagan laakiin markaan idhaaho jaaءa aladii yajtahidu fi اlcilm kii waxaa yimid cilmiga ku dadaali jiray haddaad ogeed qof cilmi ku dadaali jiray inuu yahay qofkaasi haa sidaa maa tiraahidaa lagu leeyay hadalkii hadduu dhammaystiran hadalkii hadduu dhammaystiran markii lala xidhiiriyey jumlada silada oo yajtahid fi اlcilm markaasaa macnihiisu caddaaday marka saddexdaasuu u qaybsamaa isim markii la yidhaaho isim markii la yidhaaho qaybta saddexaad oo aanaan sheegin waa damiirka ama mudmar mudmarna waad dhihi kartaa damiirna waad dhihi kartaa kaa waxaa la yidhaha maa yadulu calىa musamaahu biqariinati takalum aw khitaabin aw gayba maa yadulu calىa musamaahu biqariinati takalum aw khitaab aw gayba waa midka ku tusinaya macnihii iyo kii lagu magacaabay laakiin muxuu kugu tusinaa biqariinati takalum calaamadu wuxuu kugu tusinaa qofku inuu naftiisa uu ka hadlo oo aniga uu yidhaaho aw khidaab ama wuxuu kugu tusinaa in qof hor taagan la tilmaamo oo la yidhaho adiga aw gayba ama wuxuu kugu tusinaa maqnaasho saddexdaa mid ka mid a hadduu isimku wax kugu faa'iideeyo waa qof naftiisa ka hadlaya qofku hor taagan ood ka hadlaysid qof maqan oo laga hadlayo saddexdaa mid ka mid a hadduu isimku ku tusiyo waxaa la yidhaha isim damiir maa yadulu calىa musamaahu waa midkii musamihiisa ku tusiya biqariinati takalum aw khitaab aw gayba tusaale ahaan markaan ku idhaaho ereyga ana sheeg ism daahira mise waa mubham mise waa damiir waxaad leeda waa damiir limaada maxaad ku fahamtay inuu damiir yahay dee naftaadaad ka hadlay aniga adigaa iska hadlay adiga wixii iskaga hadlaysid waa damiir haddaan ku idhaaho anta adiga isaguna waa damiir maxaad ku fahamtay dee qofku hor taagan waya waxaad tilmaamaysid
haddii lagu yidhaha huwa isagii huwa kii maqnaa ereygan huwa isagana waa damiir maxaan ku fahmnay wax maqan uu ka hadlayo wixii wax maqan ka hadla ama qofku nafsadiisa uu u cabirayo aniga uu leeyahay ama qofku hor taagan uu qofku la hadlayo uu leeyahay anta adiga iyaaka adiga antumaa labadiinan antum jamaacadiinan antunna dumarkiinan dadka ku hor taagan waxa ka hadlaya ama wax maqan ka hadlaya ama qofku naftiisa uu ka hadlayo waxaa la yidhaha damiir marka isim daahir iyo damiir iyo mubham asmaada saddexdaa kama bixi karaan saddexdaas ayaa isimku uu u qaybsamaa ficilka isagana markaan gaarno walficlu yucrafu biqad ayaan sheegi doonaa isaguna saddex uu u qaybsamaa xarafkana markii aanu gaarno in sha allah walxarfu maa laa yasluxu macahu daliilu اlismi walaa daliilu اlficli ayaa waxaan gaari doonaa aqsaamta uu u qaybsamo xarafku iyo qaybaha isaguna uu iska leeyahay falismu isimka yucrafu huwa isimka waxaa lagu gartaa bilkhafdi hoos dhig sheekha wuxuu sheegay shan calaamo oo isimka aad ku fahmi kartid waa calaamaad waadixa oo cadcad oo qof walba hadda ka bacdi aysan ishkaal ama shaki uusan ka gelaynin wixii isim oo dhan inuu fahmo oo luqa alcarabi ku jiro ama qur-aanka ku jiro ama xadiiska ha ku jiro ama meelo kale ha ku jiraan wax walba oo isima waad fahmi kartaa haddii shantan calaamo aad xafidiso waa bilkhafdi iyo tanwiin iyo dukhuuli اlalif wallaam iyo xuruufi اlkhafdi iyo xuruufi اlqasam shantaas calaamo ayuu sheegay in lagu garan karo isimka falismu isimka yucrafu waxaa lagu gartaa bilkhafdi hoos dhig khafdi maxaa loola jeedaa waa cibaaraة can kasratin yuxdiثuhaa caamilu اljari ma huwa alkhafd alkhafdu maxay t soomaali ahaan khafdaha afkeenu soomaaliga haddaan ku fasirano hoos dhigu ereyga hoosta ka shaqlan ayaa waxaa la yidhaha khafdaa la yidhaha hoostaas shaqalka hoose tusaale ahaan hadda markaan soo qaadano bismi illaahi الرaxmaani الraxiim bismi haddii lagu weydiiyo lagu yidhaha bismidaas ma isma mise waa ficil mise waa xaraf waxaan leenaha waa isim soo maha oo maxaan ku fahmnay hoos dhiga allahina waa isim maxaan ku fahmnay hoos dhiga الرaxmaani waa isim maxaan ku fahmnay hoos dhiga الraxiim waa isim maxaan ku fahmnay hoos dhiga alxamdu lilaahi lilaahi hoos dhigaasaan ku fahmnay lilaahida waa isim rabi اlcaalamiina rabbi waa isim maxaan ku fahmnay hoos dhiga الرaحmaani الraxiim waa isim hoos dhiga wahaakada saa ku wado wixii hoos dhiganood aragtid lana hada huwa اlism kan waa ism leanna maxaa yeelay hoos dhig ficilna ma geli karo xuruuftana hoos dhig lama gelin karo idan khafdaha wuxuu ka mid yahay min khawaasi اlismi waxyaalaha isimku uu la gaar yahay oo meel kaleba aan aadi karinin hoos dhigu wuxuu ka mid yahay min khawaas الاسم ولذلika waa meesha iبن mالك رaحimه الlahu taعaalى alفiyaha markuu ka hadlayey isaguu ku bilaabay hoos dhigu isaguna ku bilaabay calaamaadka isimka biاljari والtanwiini والnida وal وmusnadi liلsmi tamyiiز xasl waa mida uu ku bilaabay isaguna faاlsmu yucrafu biاlkhafdi hoos dhigaa lagu gartaa والtanwiini laba shaqalna waa lagu gartaa laba shaqal marka khafdaha soomaali ahaan waan ku fahmnay laakiin carabi ahaan iyo tacriifkiisa iyo xadkiisa waa inaan fahmno khafd ma huwa alkhafdu ama carif alkhafd haddii lagu yidhaha khafduhu muxuu yahay waa cibaaraة can kasratin yuxdiثuhaa caamilu اljar waa cibaara can kasra waa wax laga cabiro hoos dhig yuxdiثuhaa hoos dhigana waxaa keena caamilu اljari mid hoos dhiga ka shaqeeya ayaa keena erayo waxaa jira meeshay soo galaan dhahaya annaga shaqadeennu waa inaan wax hoos dhigno kasraha maxaa keena caamilu اljari waxaa keenaya hoos dhiga mid ka shaqeeya oo shaqadiisuba ay tahay inuu wax hoos dhigo cibaaraة can kasratin yuxdiثuhaa caamilu اljari cibaaraة can kasratin yuxdiثuhaa caamilu اljari waa hoos dhig uu keenayo erey hoos dhiga ka shaqeeya oo shaqadiisuba ay tahay inuu wax hoos dhigo
hadda markaanu idhaha bismi illaahi bismi hoos dhiga ayaa keenay ba'da allaahi yaa hoos dhigay mudaafka hore bismidaa hoos dhigtay arraxmaan yaa hoos dhigay waxaa lagu hoos dhigay sifada allaahidaasuu raacsan yahay wax walba hoos dhig walba waxbaa keena iskama yimaado cirka kama soo degayo waxbaa keenayo wa tanwiin laba shaqalna waa lagu gartaa laba shaqal wixii laba shaqlan ama laba shaqalkaas ha noqdo laba shaqal god ah laba shaqal hoos dhiga laba shaqal kordhig wix walbo laba shaqal ee carabiga aad ku aragtid waxaan leenahay hada huwa alismu kani waa isim masalan gafuurun raxiimun caliimun basiirun kulli waasoo dhan waa asmaa limaada gafuurun raxiimun gafuur inuu isim yahay maxaan ku fahmnay laba shaqalka raxiimun inuu isim yahay maxaan ku fahmnay laba shaqalka caliiman waa isim maxaan ku fahmnay laba shaqal khabiiran waa isim maxaan ku fahmaynaa laba shaqal wax walba laba shaqal uu saaran yahay waxaan leenahay fa hada huwa alism kan waa isim ma huwa tanwiin tanwiin maxaa lagu yidhaha tacriifka ama carabiga waxaa la yidhaha nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhira alismi lafdan wa tufaariquhu khadan wa waqfan nuunun saakina tanwiin waxaa la yidhaha nuun reeban nuun reeban annaga markii soomaali ahaan aan u niqiinay tanwiin laba shaqal masalan caliimun khabiirun laba shaqal soomaali ahaan saasaan u niqiinay laakiin naxwuhu wuxuu ku leeyahay marka laba shaqal aad leedahay carabkaaga maxaa ugu dambeeya markaad caliimun ku dhawaaqayso ya nuuna ugu dambeya soo ma waxaan akrinaysid fiiri caliimun nuuna ugu dambeeya nuunkaas afka kaaga dambeeya waxaa la yidhaha tanwiin hada huwa tanwiin hada huwa tanwiin marka nuunun saakinatun zaa'idatun waa nuun reeban oo zaa'id ah yacni ereyga uma dhalan ereyga laba shaqalkaas iyo nuunta uma dhalan gadaaluu ka yimid nuunun saakinatun zaa'ida talxaqu aakhira alismi nuuntaas waxay gashaa isimka aakhirkiisa caliimun nuuntaas waxay gashay meesha ugu dambeeya laba shaqalka meesha ugu dambaysa isimka horena ma gasho dhexdana ma gasho tanwiin tanwiin wuxuu galaa laazim aakhira alism nuunun saakinatun zaa'ida talxaqu aakhira alismi lafdan weliba isimka aakhirkiisa waxay geli markaad ku dhawaaqaysid dhadhankaaga dhadhanso nuuna kuu dhadhamaysa caliimun khabiirun basiirun nuun wey waxa kuu dhadhamay dhawaq lafdan wa tufaariquhu khadan wa waqfa laba xaaladoodna nuuntaas carabka aan ka dhadhansanayno meesha way ka baxdaa oo laba xaaladood lama akriyo nuuntaas caliimun khabiirun nuuntaas ma akrinayno laba xaaladood labada xaaladood maxay yihiin khadan kow qoraalka hadda caliimun khabiirun markaan qorayno caliimun khabiirun nuun miyaan qoraynaa ma qorayn sooma laba shaqal bisaan qoraynaa sooma xaaladda qoraalka nuunta waa lagu dhawaaqaa tanwiinta nuunteeda waa lagu dhawaaqaa laakiin lama qoro wa waqfan marka aan joogsanaynana joogsiga aan ku joogsanaynana nuuntaasi ma akrinayno caliimun khabiir saasaan leenahay soo ma aragti waxaan ku joogsanaynaa sukuun reeb caliimun khabiir nuuntii waa baxday soo ma xaalatulwaqfi meesha way ka tegey way ka cararay xaalatulwaqfi marka laba xaaladood nuuntaas waa la waayo meesha way ka baxdaa xaalatulkhad iyo xaalatulwaqf idan marka waan fahmnay tanwiin qaybo badan u qaysamaa isaga haddii lasii dhex galo aqsaam uu leeyahay waa in sha allahu tacaala dowrka dambe qaacidadan ku sheegi doonaa haddii ilaahayna gaarsiiyo in sha allah watanwiini laba shaqal ayaa lagu gartaa idan marka waxaan ogaanaynaa meel kastoo laba shaqal aad ku aragtid hadda kitaabkan intaan soo akrinay fiiri wa aqsaamu halaaثatun maxaan uga jeednaa laba shaqal soo ma waa ism halaaثatun ismun waa ism wa ficlun waa ism xarfun wahaakada limacnan wax kasta sidaa u fiiri
idan marka waxaa laga rabaa naxwaha waxaa lagu bartaa tadbiiq wixii aad soo baratay dhaqan geli waxaad soo baratay dhaqan geli tusaalaha iyo mithaalka lagu sheegay ha ku gaabsanin naxwuhu waa koow oo kun looga qiyaas qaato saasay culamada yidhaahaan yani maxay tahay hal xabbaa lagu sheegay kunkii kale adaa lagaa rabaa soo ma a tusaalahaan annaga markaan mithaalinayno hal mithaalaan aniga kuu sheegi kunkii kale adigaa lagaa rabaa naxwuhu waa koow oo kun looga qiyaas qaatay soo ma saas wey laazim haddaadan marka tadbiiq samayn karin oodan qiyaas qaadan karin waxa weeye meel walba zaydun aad ag fadhiisan un zaydun wax ka baxsan haddii lagu keeno war waxaan sooma arkin aad leedahay waana wixii lagu sheegay laakiin caqligaaga waxaa ka maqnaa inaad shaygan wax kani inuu la mid yahay inaad fahamtaa kaa maqnayd inuu la mid yahay inaad fahamtay ayb marka maxaa lagu fahmi karaa bilkhafdi والtanwiini laba shaqal tusaale ahaan mithaal aan bixinayna marartu waxaan soo maray bigulaami zaydin marartu waxaan soo maray bigulaami zaydin marartu waxaan soo maray bigulaami zaydin zayd ninka la yidhaha addoonkiisii ayaan soo maray ama waxaad ku mithaalin kartaa marartu bisaaxibi cilmin marartu bisaaxibi cilmin waxaan soo maray nin saaxibu cilmi ah ayaan soo ag maray marartu bisaaxibi cilmin nin saaxibu cilmi ahaan soo maray oo cilmi u saaxiib ah marartu waxaan soo maray bisaaxibi cilmin cilmiga saaxiibkiisii tusaalaha marka maxaan ula jeednaa bisaaxibida maxay tahay haddii lagu su-aalo waa isim maxaad ku fahamtay khafdaha hoos dhiga cilmina waa isim maxaad ku fahamtay tanwiin laba shaqalkaasaan ku fahmay icraab marka mithaal walba wuxuu kaa rabaa inaad hoos u gashid bisaaxibi cilmin in layska kor maro waa iska saalantaha lakin markii lu yidhaha hoos u daadego bal noo icraab waxaad ku hadashay bal noo sii faahfaahi taas wey midda lagu kala tegey lana doonaayo inaan fahamno marartu waxaan leenahay ficlun wa faacilun ficlun wa faacil maxaa loola jeedaa ereyga marartu wuxuu ka kooban yahay ficil iyo ficilkaas qofkii sameeyey maxay tahay waa ta'da faacilkii ah ficilkuna wuxuu ku sinan yahay marar waa ficilkii tu'daasna waa faacilkii haddaan isku qabanno waxay noqone marartu ficlun wa faacilun ficil iyo faacila isku jira marartu aniga ayaa soo maray hadda ta'daas haddii lagu su-aalo lagu yidhaha ma ism daahira mise waa damiir mise waa mubham adigoo ka amba qaadaya tacriifkii hadda aan soo baranay maxaad leedahay ta'du waa ism hadde qofaa tiri waa ism hadde ism waa isla ognaye yuu ka yahay wey waxaan is su-aalayn ya waa ism damiir maxaan ku fahamnay ya dad badana waxay leeyihin khidaabkan ku fahmay war khidaabka soo hadda khidaab miya marartu anigaan leeyahay aniga khidaab waxaa la yidhaha qofka horta adiga way khidaabka af soomaali ahaan markii lagu yidhaha adiga ama labadiinan ama saddexdiinan khidaabkaasaa la yidhaha haye taadu maxay tusine dadka dhahaya takalumka dadkaasaa saxan taadu waxay tusinaya takalum yacni waa qof asagu iska hadlayo marartu aniga naftiga ka taada waxay kutusinaya takalum walidaalika taadan waxaan leenahay waa ism damiir waay marartu ficlu wa faacil bisaaxibi cilmin albaau xarfu jarin xarfu jar maxaa loola jeedaa waa xaraf wax hoos dhiga shaqadiisa dhana waxay tahay meeshuu soo galo uu hoos dhigaa saaxibi majruurun bilba saaxibka waxaa hoos dhigay ba'daas ayaa loola jeedaa icraabka waa inaad macnaysato ulajeedadiisa aad fahamtid iska akri ma ah bisaaxibi albaa xarfu jarin saaxibi majruurun bilba ba'daa lagu hoos dhigay wacalaamatu jarihi calaamada lagu hoos dhigay kasratun daahiratun fii aakhirih waa hoos dhiga aakhirka ka muuqdow dayb marka meeshan waxaan sheegnay xaraf wax hoos dhigay iyo mid isim la hoos dhigay waxaa laysku yidhaha jaar majruur jaarka waxaa weye waa kii wax hoos dhigay
majruurkuna waa midkii la hoos dhigay jaar majruur hadduu meesha soo galo wuxuu u baahan yahay meel uu xiriir la leeyahay waa inay jirto meel ay xiriir la leeyahay waa inay jirto culimmadu waxay dhihi jireen xaraf jaar iyo xerowba meel la-aan ma dhacan de xilligii hore mahmahadaas baxday hadda qof walba xerta nin walba mobile iska wataaho waa iska qorxoon yahay xilligii hore rafaadka dhibaatada cilmiga lagu baran jiray waxaa la dhihi jiray xaraf jaar iyo xerowba meel la-aan ma dhacan yacni xerow meel la-aan ma dhaco waxaa weeye inta badan dadku gobolladii ka soo xeraysan jireen oo cilmiga ay ka soo raadsan jireen muxuu u baahan yahay meeluu cunto u doonto u laabto soo ma markuu casharka soo akhristo meeluu cunto u doonto u laabto u baahan yahay ya xaraf jaar iyo xerowba meel ay u laabtaan ayay u baahan yihin meel la-aan ma dhacan xaraf jaar isaguna muxuu rabaa meeluu u laabto meeluu u laabto waa meel lagu tacallujiyo u yeesho meeshaad ku tacallujinayso waa basiid saad u fahmi karto see ku tacallujin ereyga markaad macnayso carabkaaga waxa ugu dambeeya ku tacallujiya u celi mararta waxaan soo maray bisaaxibi cilmin cilmi saaxiibkiisaan soo maray carabkaaga maxaa ugu dambeeya hadda soo maray yaa noogu dambeya soo ma soo maray carabigeedii aawo saaxiibka miya mararta soo ma aljaaru walmajruur mutacalliqun bimarartu yaan len marka carabka meesha ugu dambeeya jaaru majruurka loo celiyaa carabka meesha ugu dambeeya jaaru majruurka loo celiyaa ayib hadda ka hor waxaa jiray astaamahaasaan bixin jirnay ko markii naxwaha aan akhriyi jiray marka waxaan u akhri jiray dad odayaalaha ku jiray odayaashii marka waxaa la yidhi haye mithaalkana idinku soo aadayey icraaba marka waxay ahayd waa xasuustay dahabtu bizaydin ay ahayd nin odayaa la weydiy dahabtu bizaydin zaydaan la tegey bal icraab marka muxuu maqlay qaacidadan aan dhahaynay carabkaagu meesha ugu dambeeyaa lagu tacallujiyaa jaar majruurka haye adiga macnayso carabkaaga meesha ugu dambeeya jaar majruurka ku tacalluji waa macnaystay dahabtu bizaydin zayd ayaan la tegey aljaaru walmajruuru mutacalliqun bitegey uu yihi marka aljaaru walmajruur mutacalliqun bitegey meesha wuxuu u fahmay af soomaaliga in lagu tacallujinayo af soomaaliga ma aha horta soomaali ahaan carabigiisa way waxa lagu tacallujinayo soomaaliya hadda annaga wax isku fahamsiinayn soo ma laakiin soomaaligaas carabiga u dhigma way waxa lagu tacallujinayo jaar majruurka marka inkii nin odayahu ahaa dad dhallinyaraha waa iska taqaanaan dhallinyaradii waa ku qosleen maalintii asna casharka ugu dambeysay dadkii xertii maxay ku dhejiyeen odagii bitegey dheheen bitegey waa qisadaas qiso dhacday waay raggii hore naxwaha akhrisan jiray waa joogaan hadda waa nool yihiin waa la socdaan qisada maalintay dhacaysay iyo qofka magaciisa inaan sheego ma rabo waa macruuf la yaqaan waay raggii hore naxwaha akhrisan jiray ayib waa yahay aljaaru walmajruur bisaaxibi cilmin aan soo maray aljaaru walmajruur marka yaan la dhihin mutacalliqun bisoo maray hadda mutacalliqun bisoo maray yaan hadda la dhihin aljaaru walmajruuru mutacalliqun bimarartu carabigan ku tacallujinayna ay saaxibi cilmin waxaa soo haray cilmi saaxibi mudaaf cilmin mudaafun ilayhi majruurun hay mudaafi mudaaf ilayhi meeshuu soo galo maxaan ku fahmi karnaa waxaan ku fahmi karnaa ereyada soomaaliga fiiri marka la macnaynaayo kiisii koodii keennii kaagii ereyadaas soomaaliga meeshay soo galaan waxaa ku jira mudaaf iyo mudaaf ilayhi kaagii kiisii keennii koodii weligeen saasaan ugu fahmi jirnay si basiida naxwaha lagu fahmaa la soco laakiin caqligaaga furfur bisaaxibi cilmin maalinood waxaa jiray nin doctoor ahoo doctoore luga alcarabiya ku soo qaatay suudaan ardaydii wuxuu ka mid ahaa koow ajruumiga dadkii aan u bilaabo ku jiray marka doctoor soo qaatay luga alcarabiya PhD ku soo qaatay suudaan uu ka yimi maalin dhaweedu marka jaamacadda anigu joogo maalin dhaweed islaami markaasu wuxuu yidhi wax badan waxaan ku dheef u yidhi markaadna dhihi jirtay koodii kiisii koodii luga alcarabiya ilaa doctoora kaasaan ku helo yidhi koodii kiisii wax badanaan ku fahmo yidhi ilaa yowmina hada mudaafkii mudaaf ilayhiga ma fahmi lahayn uu haddii aadan dhihi lahayn koodii kiisii keeni idan marka waa wax weyn ha fududaysan waxayna madaayiq badan oo meelo badan oo ciriiri ah oo idaafadu ay ciriiri kaa geli doonto ayaad xasuusan doontaa in koodii kiisii keeni kiisii
كودي ماشي سوقشو مضاف إيه واحد لهذا مضاف إليه. طيب مركز هذا فيري مرفت وحن سومر بصاحب علمك صاحب كيسي النص وقت شماها. طيب وحن لنا صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. علم انت يا هوس دقي مضاف كا هوس دقي مضاف إليه كستوحى هوس دقي مضاف المرام كعلنه مرفت بصاحب علم مرفت فعل وفاعل بصاحب الباء حرف جر صاحب مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمرفت صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مضاف إليه دائما وهوس دقي يعني هوس دقي مضافك. أما مضافك هو وبحسب العوامل مضافك مر بوحو كحرن يهي عاملك قلا هدو الشيء هوس دقي هورك قلنا ولا هوس دقي wax goda haduu hore ka galo mudaafku waa la goda wax kordhiga hadii hore ka galaan mudaafku waa la kordhiga laakiin mudaaf ilayhi daa'iman wuu hoos dhigan mudaaf ilayhi waa midka labaad daa'iman wuu hoos dhigan tayib bil khafd wa tanwin lagu gartaa wa dukhul al alif wal lam wa dukhul al alif wal lam waxa lagu gartaa alif iyo lam gelitaankoodii ayaa lagu gartaa. علاماتي وحنو سعدا اسمك علامة السدحات وألف يا اللام ألف يا اللام حلو جدا ال ماشي أنو كوارقنا ال وحن لنا هاي واسم اسمه دي بنقول الله عشرة دي هراء نسوق هذا النفيري الكلام واسم محايا ال نوجد نسمها اللفظ واسم محايا ال يا دليل نوجوه طيب بالخفض إذا نفتي ده واسم على الشيء التنوين واسم وحاول دليل على قش فالاسم واسم حول دليل على قش الرحمن الرحيم كل واسم الله واسم الحمد واسم على قش الميل كستو تكو عرفتي هذا هو الاسم محيل لأن من خواص الأسماء وحي كمتهي وحيالها أسماء كو غاركا وميل كلبا أنجلي كرينين ميل كلبا أنجلي كرينين تصالحان هل تصالحان سوق هذا ونعرابنو جاء المطر روبكي يا يمد جاء المطر روبكي يا يمد جاء المطر روبكي يا يمد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فعل ماضي محل الجدا وفعل هراء تجي بعده هراء مر هراء يمد مر هراء يمد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المطر روبك يا يمد المطر فاعل جاء وإماتك كي سمي وحا إيمانا يوا روبك وحا فعل كسمي وحا اللي فاعل المطر فاعلنا دائما عشرة دي ونمحنك سوى شيئا ومنصوب مرفوع دائما فاعل داترا مرفوع وقلنا فاعل كل المطر فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره علامة اللي قدنا وضمة آخر كم مغنس جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المصدر فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره علامة أفراد اسم كاللغو قرن كرو وحروف الخفض هوس لقى حروف تيسي أيا اللغو قرتا حروف توحوس لقتا هدي اسمك أي قلان حروف توحوس لقتا اسمك هدي أي قلان يعني أريقا هدي أي قلان أريقا سبحان لأنها واسم محان نقول دليلة حروفتنا كم نغط وهي حروفتها وحوس لقيسة من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباو والكاف واللام ومن إلى عن على في رب با كاف لام إلى سقال حرف الشيخ سقال كاس حرف أو حروف الخفض اللو يقال ماشي أي قلان واسم محيلا لأن حروف الخفض من خواص الأسماء حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء حروف الخفض اسمها مالكله ما قلان فحروف تحصل ليس مثلا من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الشيطان محوية هذه الوراء واسم حنكو فاهمين منها هراك قشي
calaamad badan aba noogu kulmay somaha الshayطaan maxaa kale calaamad kale calaamadka saddexaad ya hoos dhig ayb saddex calaamaan ku haynaa maxaa yeele bacd alcalaamaat waxaa dhici kara inay kulmaan hal eraya waxaa dhici karta saddex calaamo inay ku kulmaan hadda sida min الshayطaan waxaan haynaa mintii waan haynaa minaa gashay calaamo kalean ku fahmi karnaa calaamo kalean ku fahmi karnaa inuu isim yahay hoos dhig ayb wa hiya min marka xarafkan min oo ugu horeeya xuruuf اlkhafdi waa xaraf shaqadiisu ay tahay caam yani shaqadiisu waa caam ulajeedada laga leeyay maxay tahay meel uusan ku shaqaynin oo uusan hoos dhigi karin male min waxaan ogaanaynaa aan ka faa'idaysanaynaa laba shay meeshii ay gasho meeshaas in la yidhaaho isim faa'iidada labaad aan ka faa'iidaysanayno waxaa weeye in la hoos dhigayo meeshay gasho min oo ay ka mid tahay xuruufta wax hoos dhiga shaqada ay qabato waa hoos dhig ereyga min meeshuu galo waxaan faa'idaysanaynaa min waxa ka dambeeya inuu yahay isim waxaan kaloo faa'idaysanaynaa iyadu inay wax hoos dhigto oo lagu khasban yahay meeshay gasho inay waajib tahay in la hoos dhigo ayb midda kale waxaan kaloon ogaanaynaa ereyga min shaqadeedu waa caam shaqada waa caam maxaan ula jeednaa waxay hoos dhigi kartaa oy awood u leedahay qaybihii saddexda ahay oo isimka uu qaybsamayo kulli waa ku shaqayn kartaa alismu الظaahir walismu اlmudmar walismu اlmubham saddexdaba way hoos dhigtaa tusaale ahaan iyadoo isimkii daahirkaa hoos dhigtay sirtu min albeyti ilى اlmasjidi ilaadiina waan ku miaalin waan ku qabanaynaa min wa ilaa mihaalku si uu noogu noqdo mihaal kulminaaya min iyo ilaa oo labadoodiiba hoos dhigeen sirtu waxaan ka soo socday min albeyt guriga xaggiisaan ka soo socday ilى اlmasjidi xagga masjidkaan usoo socday sirtu min albeyti ilى اlmasjid fiir hadda ereygaas min albeyt albeyt waa isim maxaa noogu daliila calaamaad badanaa ku kulmay al ayaa meeshii ka arkaynaa waxaan kaloon ka arkaynaa hoos dhigi waxaan kaloon ka arkaynaa min ilى اlmasjidi ereyga almasjid isaguna waa isim maxaan ku fahmnay hoos dhig iyo al iyo ilaa waa xuruufulkhafdi ka mid oo gasha saddex calaamaba ku kulantay isagana ayb marka see u icraabayna sirtu waxaan ka socday min albeyti gurigaan ka soo socday ilى اlmasjid sirtu ficlu wa faacil ficilku wuxuu ku sinayahay sir ta'duna waa faacilkii waa faacil daa'imanna isimuu noqdaa daa'iman marka isimku kee ka yahay waa ismu damiir lanna waa kii haddaan soo marno kale wuxuu tusinaa takalum sirtu ficlu wa faacil min albeyti min xarfu jarin waa xaraf wax hoos dhiga albeyti majruuru bimin waxaa lagu hoos dhigay mintaasaa hoos dhigtay wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fي aakhirih calaamadda lagu hoos dhigay waa hoos dhiga aakhirkiisa kasii muuqda ayee jaar majruura meesha soo galay xaraf jaar iyo xeruuba tacalluq la-aan ma dhacan meel ku tacalluq ay u baahan yahy lakiin af soomaaliga aan fiirino sirtu waa socday min albeyt gurigaan ka soo socday maxaa ugu dambeeya carabka socday soo ma intee ku tacallujinaynaa bisocday ha dhihinina ya aljaaru majruur mutacalliqun bisirtu ilى اlbeyti ilaa xarfu jar albeyti majruuru bilaa ilaadaas ayaa lagu hoos dhigay ilى اlmasjidi ilaa xarfu jar almasjidi majruuru bilaa wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fي aakhirih ilaadaasaa hoos dhigtay ilى اlmasjidi yaan u socday isna maxaa ugu dambeeya socday maxaan ku tacallujinaynaa aljaaru majruur mutacalliq bisirtu hadda waxaa meesha aan ka fahmnay ficil in laba xaraf laba jaar majruur ay ku soo tacalluqi karaan saddex ay ku afar ay ku tacalluqi karaan xuduud ma laha labada waxaan ku tacallujinay sirt aljaaru majruur mutacalliq bisirt marka min hadda waxaan haynaa iyo ilaa iyagoo hoos dhigay isim daahir minta isimka damiirkaana way hoos dhigtaa maxaa ka mid a cajibtu minka adigan kula yaab cajibtu minka kaaftaas waa damiir isim damiirow maxaan ku fahmnay waxay ku tusinee khidaab adiga qofka hortaagan wey oo lala khidaabayo adiga
عجبت فعل وفاعل منك من حرف جر والكاف مجرور بمن كافته waxaa hoos dhigay min مبني على الفتح في محل جر kan marka maxaa loo dhihi waayey cajibtu minkin caadi maxaa loogu hoos dhigi waayey tanwiinta caadiga mid waxaa jirta waan fahmi doonaa insha allah isimka damiirka xarakada uu u dhashay lagama bedeli karo mabniya la yidhaha kaaftaas waxay u dhalatay kordhiga lagama bedeli karo oo hoos dhigii shaqadii xarafkanna xaggee la geyn minka ilaa wuxuu rabaa inuu wax hoos dhige shaqadii hoos dhiga hoostuu ka wadanaa qarso ha kuu qarsanaato ha kuu qarsanaato min hoos dhigaaga ha kuu qarsanaato laakiin damiir wuxuu ku leeyahay aniga muuqaalka laygama bedeli karo muuqaalkan waan u dhashay hoos dhigii ma la rabaa hoos dhigii maxalka ha kuugu duugnaado ha kuu qarsanaado laakiin muuqaalka laygama bedelo walidaalika waxaan leenahay min xarfu jarin walkaafu majruurun bimin mabniyun cala alfatxi fii maxalli jarin hoos waxaa ugu duugan hoos dhig hoos dhig aljaaru walmajruuru mutacaliqun ugu tacalluq cajibtu minka adigan kula yaabay waxaa ugu dambaysa yaabay aljaaru walmajruuru mutacalliqun bicajibtu cajibtu isagoo isim mubhama mubham isagoo hoos dhigay mintii maxaa ka mid a cajibtu min haada qofkanan la yaabay min haada cajibtu ficlu wafaacilu min xarfu jarin haada haa xarfu tanbiih waa xaraf tusinaya baraarujin haa baraarugu daa ismu ishaara ismu ishaara maxaa loola jeedaa waa isim tusinaya fartaagid haada kan marka ad leedaha kan oo farta ku taagaysa ismu ishaara la yidhaha daa ismu ishaara majruurun bimin waxaa hoos dhigay minkaas mabniyun cala الsukuuni fii maxalli jarin ismu ishaara daa'iman isaguna waa sida damiirka oo kaleo wuxuu leeyahay anna reebkan waan u dhashay min shaqadii hoos dhiga ahayd hoos ka wado mabniyun calى الsukuun fii maxalli jarin waa mebni isagana ashyaada mebniga ah muuqaalka lagama bedeli karo wixii shaqo raba ama god raba ama hoos dhig raba ama kor wada waxay leeyihiin hoos ka wado shaqadaadi cajibtu ficlu wafaacil min hada min xarfu jarin haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara majruuru bimin mabniyun calى الsukuun fii maxalli jarin aljaaru walmajruuru mutacaliqu bicajibtu marka saas waxaan ogaanay damiir daahir mubham intaba mintu inay awood u leedahay inay ku camal fasho muxuu faa'iideeyaa xaraf kasta macnuu leeyahay xuruufu lkhafdaha xuruufta wax hoos dhigta xaraf walbee ka mida macnuu faa'iideeyaa macnuu leeyahay idan marka xarafkan min muxuu faa'iideeyaa macaanida min aaday u fara badanta kutubta waaweyn naxwaha marka ilaahayna gaarsiiyo in sha allahu tacaala ayaan fahmi doonaa laakiin maadaama marxalo ibtidaa'iya hadda aan ku jirno wax yar un baan ka tilmaamayna wax yar alfiyaha markaan gaabno matniga alfiyaha ma ku arki doonaa bacid wabayin wabtadi fi اlamkina bimin waqad ta'tii libad'i اlazmina waziida fii nafyin washibhihi fajar nakiratan kama libaagin min mafar halkaasaan ku arki doonaa ayb hadda laakiin waxaan ogaanaynaa kaliya mintu waxay faa'idaysaa alibtidaa bilow ibtidaa hadda fiiri markaan dhahaynay sirtu waxaan ka soo socday min albeyt guriga xaggiisaan ka soo socday mintaas maxay faa'iideyn ibtidaa bilow maxaa yeele socodkaagii waxay noo faa'iideynaya inuu ka soo bilowday xaggee guriga inuu ka soo bilowday socodkii in guriga uu ka soo biloawmay maxaana tusinaaye mintaana tusinaayo subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid ka dheelmiyey nabiga calayh الsalaatu wasalaam ka dheelmiyey min almasjid اlxaraam masjidu xaraam ka dheelmiyey mintaas oo almasjid la geliyey maxay noo faa'iideyne alisraa ibtada'a min almasjid اlxaraam dheelminta nabiga calayh الsalaatu wasalaam inay ka bilaabatay masjidu xaraam oo meel kale aan laga bilaabay marka saas intaasaan ku gaabsanaynaa inay mintu faa'iideyso alibtidaa bilow ay faa'iideyso macaanideeda waa badan yihiin waxay faa'iideysaa oo kale tabciidiya bimacna albacdi bimacna albacd wa min annaasi man yaquulu aamanaa dadka waxaa ka mida kuwo dhahaya waan rumaynay daacadna aysan ka ahayn dadka qayb ka mida qayb ka mida
waxay kala faa'iideysaa bimacna albedel bedel way faa'iideysaa aradiitum biاlxayaati اddunya min alaakhira aradiitum waxaad ku raalli noqoteen biاlxayaati اddunya noloshan adduunyada miyaad ku raalli noqoteen min alaakhira bedel alaakhira oo aakhira ma waxaad ku bedel qaadateen noloshan xun wuu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala marka mintu waxay faa'iideysaa ibtidaa bimacnaa bacdi way faa'iideysaa bimacna albedel intaa aan isaga gaabino bimacna albedel macno saddexaanu sheegnay hadda wa ilaa ilaada iyadana maxay faa'iideysaa ilaa waxay faa'iideysaa alintihaa alintihaa maxaa loola jeedaa dhammaad dhammaad wixii inay dhammaadeen ilaadaa tusinaysa hadda markaanu dhehaynay sirtu waxaan ka soo socday min albeyt guriga xaggiisaan ka soo socday ila almasjidi masjidkaan u soo socday ilaadu waxay noo faa'iideynaya socodkii inuu ku dhammaaday masaajidka uu ku dhammaaday ilaadaana tusinaysa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah dheel midkii wuxuu ka soo bilowday masjid اlxaraam xaguu ku dhammaaday meesha ilaa ay gashay ayuu dheel midkii nabiga calayh الsalatu wasalaam uu ku dhammaaday ila almasjid alaqsa u dheelmiyey ilaa masjid alaqsa laga gaaro isrii halkaasuu ku dhammaaday dheelmintii nabiga calayh الsalatu wasalaam inuu halkaa ku dhammaaday xaggee ka fahmaynaa ilaa wixii samaawaadka iyo marka la korsiinayo isra ma aha dheelmin maaha waxaa la yidhaha micraaj micraaj aa la yidhaha markii nabiga calayh الsalaatu wasalaam samaawaadka iyo wixii ka sarreeye la korsiiyey micraaj aa la yidhaha ama alisraa fahuwa yabtadi min almasjid alxaraam wayantahi ila almasjid alaqsa sida xuruuftan aan ka fahmayno bilow iyo dhammaad bilow iyo dhammaad ilaada marka waxay noo faa'iideynee alintihaa dhammaad wixii inay dhammaadeen ilaada hadda waxaan qaadanay misaal ahaan oo tusaale ahaan aan ku qaadanay iyadoo isim daahira hoos dhigtay iyadoo hoos dhigaysa damiir maxaa ka mid a sirtu ilayka adiga xaggaagan u soo socday sirtu ilayka ilayka sirtu ficlu wafaacilu ilaa xarfu jarin wاlkaafu majruuru bilaa mabniyu calى اlfatxi fii maxali jar maxaa kaafku waa damiir intii hadda aan soo marnay oo kale shaqada ilaa wuxuu leeyaha hoos ka wado aniga damiiraa la yidhah laima bedelo sidaan u dhashay laygama bedeli karo sirtu ficlu wafaacilu ilayka ilaa xarfu jarin wاlkaafu majruuru bilaa mabniyu calى اlfatxi fii maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bsirt sirtu ilayk isagoo haddana ilaadii hoos dhigay alismu اlmubham sirtu ilaa haada kan xaggiisaan usoo socday sirtu ficlu wafaacil ilaa hada ilaa xarfu jarin hada ha xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyu calى الsukuun fii maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bsirt carabka meesha ugu dambaysaad ku tacalujin wa can xarafka saddexaad ee xuruufta wax hoos dhigta ka mid ah waa xarafka la yidhaaho can xarafkan can muxuu faa'iideeyaa wuxuu faa'iideeyaa atajaawuz ka gudbid meeshuu soo galo wuxuu ku faa'iideynaa tajaawuz gudbid tusaale ahaan ragibtu can الdembi ragibtu waxaan nacay can الdembi dembigii anigu waa nacay marka can الdembi cantaas maxaynu tusine tadulu anaka tajaawazta wa acradta can الdunuubi wاlmacaasi adiga inaadan dembi aad ka gudubtayba ood nacday ood ka weynaatay oo caqligaaga iyo maskaxdaada iyo ficilkaaguba dembi ay ka weynaadeen oodan nacday ayna tusine cantanaa noo faa'iideysa tajaawuz wixii aad ka dallacday ood ka gudubtay ayayna tusinaya cantan can ragibtu waxaan nacay can idembi dembi anigu waa nacay marka cantani meeshay soo gasho way hoos dhigtaa waxaan kaloon ogaanaynaa meeshay gashana inuu yahay isim
waxaan kala ogaanaynaa in macaanideeda ay ka mid tahay التajaawuz ka gudbid إعraab ragibtu can dembi dembigii waa nacay ragibtu ficl وفاacil can الdembi can xarفu jarin الdembi majruur bcan cantaasaa lagu hoos dhigay وcalaamaةu jari calaamadda lagu hoos dhigana kasraة ظaahiraة في akhiri waa kasrada aakhir ka muuqata hoos dhiga aakhir ka muuqda aye jaar majruur haddii meesha soo galay waa inaan dib ugu celino meel loo celiyo waa inuu yeesho meesha carabkaaga ugu dambeeyaad u celin ragibtu can dembi dembigiyaan nacay carabka maxaa ugu dambeeya nacidda aaw haddi marka ragibtu aljaaru majruur mutacaliq biragibtu ragibtu aan ku tacalujinayna isagoo damiir hoos dhigay damiir ilaa can isaguna wuxuu ka mid yahay xurufuljarka camalkoodu uu yahay caam ama shaqadooda uu yahay caam meel walbuu galaa meel walbuu hoos dhigaa alismu daahir walismu damiir walismu اlmubham saddexdaba uu hoos dhigi karaa isagoo isim oo damiira hoos dhigay ragibtu canka adiga ayaan ku nacay ragibtu canka ragibtu ficl وfaacil canka can xarfu jarin wاlkaafu majruur bcan mabniy calى اlfatxi fii maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq biragibtu isagoo isim mubhama hoos dhigay ragibtu can haada kan ayaa nacay ragibtu can haada kan ayaa nacay ragibtu ficl وfaacil can haada can xarfu jarin haada haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara majruur bcan mabniy calى الsukuun fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq biragibtu wa calaa calaaw xarafkan oo isaguna afaraad ee xuruufuljariga ka mida saddex xarafaan soo qaadanay min ilaa can xarafka afaraad waa cala xarafkan calaa la yidhaaho maxaan faa'iideynaa haddaanu aragno meeshii aan ku aragno waxa ka dambeeya inuu yahay isim ilaa waa xuruufta lagu garto asmaaduu ka mid yahay waxaan kaloon faa'iideynaa meeshuu soo galo inuu hoos dhigo meeshuu soo galo inuu hoos dhigo oo kordhig iyo god iyo aan loo ogolayn waxaad leedahay calى الsamci والطaacati oo kale calى الsamci calى اlbeyti calى الshamsi calى اlqamari calى اlmasjid calى الطariiq calى اlqalami daa'im meeshuu soo galo waa in la hoos dhigo maxaa ka mida marka isagoo isim daahira hoos dhigay calىa rakibtu calى الsayaarati gaarigiyaan koray rakibtu calى الsayaarati gaarigii waan koray rakibtu ficl وfaacil calى الsayaarati calىa xarfu jarin الsayaarati majruur bcalaa calaadaasa hoos dhigtay calaamatu jari calaamadda lagu hoos dhigay kasraة ظaahiraة fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru xagee ku tacalujinaynaa mutacaliq birakibtu calى الsayaara gaarigiyaan koray ayaa ugu dambaysa mogtaha koray aljaaru wاlmajruuru mutacaliq birakibtu calaada camal falkiisa isagana waa sidii kuwii oo kale waa caam wuxuu galaa isim oo damiir mubham ظaahir kulli wuu hoos dhigaa alism اlmubham isagoo galay oo hoos dhigay rakibtu calىa haada kanaan koray rakibtu ficl وfaacil calىa xarfu jarin haada haa xarfu tanbiih da ismu ishaara majruur bcalى mabniy calى الsukuun fii maxali jarin ilaa ismu ishaara waa mebni waa u dhashay horaan usoo qaadanay lagama bedeli karo shaqada calaa oo hoos dhiga hoos ku qarsu kuleeyahy hoos ku wado hoos ku wado مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بركبت isagoo haddana damiir hoos dhigay oo damiir galay rakibtu calayka dushaada ayaan koray rakibtu calayka rakibtu ficl وfaacil calayka calىa xarfu jarin wاlkaafu majruur bcalى mabniy calى اlfatxi kordhigaas uu u dhashay lagama bedeli karo fii maxali jarin laakiin maxalka hoose wuu ka hoos dhigan yahay ilaa calaa ku jirta aljaaru wاlmajruuru mutacaliq birakibt marka halkaa waxaan ka ogaanay calى alism الظaahir wاlism اlmudmar wاlism اlmubham saddexdaba inay ku shaqaynayso
laakiin shaqadoodu ay kala duwan taho haddii erayada mebniga sida ismulishaara iyo ismulmawsuul iyo waxyaalaha markay gasho damiirka iyo shaqadii hoosay ka wadaneen ismu daahir hadday gashona shaqadii bannaankay soo dhigan shaqadii bannaanka ayay soo dhigan dayb marka calaa muxuu faa'iideeyaa calaa wuxuu faa'iideeyaa alisticlaa isticlaa calaa lilisticlaa calaa lilisticlaa wamacnaa fii wacan bican tajaawuzan canaa man qad fatan oo ka alfiyaha yidhi ibnu malik raximah اllahu tacaala calaa isticlaa macnihiis maxay tahay saramarid calaa waxayna tusinaya luqa ahaan sarrayn markaad leedaha rakibta cala sayaara gaarigiyaan koray yani gaarigii korkiisaan koray wey anaa ka koreeya gaarigiina hoosteyda ayuu jiraa korayn ayuu tusin korayn wa fii xarafkan shanaad ee xuruufta wax hoos dhiga ka mida waa ereyga fii hadda fiiri markaad fiiriso qur'aanka wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun waa calaadii fiiri kulli wa cala alfulki calaadaas alfulkiga ka dambeeya waa la hoos dhigay limaada hoos dhig wuxuu bannaanka kan u yaalla waa ismu daahir alfulk wa calayha calayha haadaas waa hoos dhigantay lakiin awa hoos dhigii ya limaada muxuu bannaanka isaga imaan waayo hoos dhigu waa ku qarsan yahin leanna ism waxa weeye waa damiir damiirkana dhalashadiisa lagama bedelo mebni wey binahaas suu u dhashay lagama bedeli karo lidalika wa calayha markaad icraabaysa calayha calaa xarfu jarin haa waa ism damiiro majruurun bicalaa mabniyun cala الsukuun fi maxali jarin fi maxali jarin wa fii wey xarafkan shanaad waa ereyga fii ereygan fii meeshuu soo galo waa in la hoos dhigo fi اlbeyt fi اlmasjid fi اlcilmi fi الnaxwi kulli waa la hoos dhigo meeshuu soo galo waxaan faa'iideynaa oo kale ereygan fii waxaa ka dambeeya inuu yahay isim isaguna meeshuu soo galo ay waajib tahay in la hoos dhigo tusaale ahaan maxaa ka mid a ragibtu fi الnaxwi ragibtu waxaan jeclaaday fi الnaxwi hal arrinna ogaaw ficilka ragiba mar waxaan ku soo macnaynay nacayb soo mahayn haddana maxaan ku macnaynaynaa jacayl limaada maxaa halkii ficil marna jacayla lagu macneeyey marna nacayb limaada meeshan waxa weye waxaa ku jira luga alcarabiya cajiibkeeday leeda waa luqaadka midda ugu fasaaxada badan ereygan ficilka ragiba can haddii laga gadaal mariyo nacaybuu noqdaa fii haddii laga gadaal mariyona jacayluu noqdaa macnihiisa waman yargabu can milati ibraahim ilaa man safiha nafsah waman yargabu yaa nacaya can milati ibraahim nebi ibraahim diintiisa qofka nacaya waa qofkee ilaa man safiha nafsah qof naftiisii nacay un oo naftiisii jaahil ka noqday qof naftiisii nacayaa diinta naca soo maha marka waxaa weeye ficilka ragiba haddii can laga gadaal mariyo nacid waa fii haddii laga gadaal mariyana oo fii uu ku gudbana jacaylu isku bedeli marka ragibtu fi naxwi naxwihii aan jeclaaday ragibtu fi naxwi hadda annaxwi waa la hoos dhigay fiidaasaa hoos dhigaysa fii ayaa hoos dhigaysa wa fii anfusikum afalaa tubsiruun wa fii anfusikum anfusi way hoos dhigantaa fiiri limaada fiidaasaa hoos dhigta fiiyaa hoos dhigta ragibtu waxaan jeclaaday fi الnaxwi ragibtu ficl wafaacil fi الnaxwi fii xarfu jarin waa xaraf wax hoos dhiga الnaxwi majruuru bfii fiidaasaa hoos dhigtay وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhiri aljaar wاlmajruuru mutacaliq maxay ku tacalujinaya naxwaan jeclaaday waa ragibtu aljaar majruur mutacaliq biragibtu isagoo damiir hoos dhigay oo damiir galay ragibtu fiika adigaan ku jeclaaday ragibtu fiika ragibtu ficl wafaacil fii xarfu jarin wاlkaafu majruur bfii mabniy calى اlfatxi kordhiga wuu u dhashay isaga lama bedeli karo fii maxali jarin aljaar wاlmajruuru mutacaliq biragibtu isagoo isim mubhama hoos dhigay ragibtu fii haada kan ayaan jeclaaday ragibtu ficl wafaacil fii hada fii xarfu jarin hada haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara majruuru bfii fiidaasaa hoos dhigtay laakiin waa mebni mabniy calى الsukuuni fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq biragibtu
halkaas ayaan ku joojinaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam laakiin inta aanan joojin xarafkan macnihiisi yaanaanu sheegin fii muxuu faa'ideeyaa aldarfiya dhexnimo ragibtu fi naxwi naxwaha dhexdiisaan jeclaaday dhexdan uga jir jacaylka dhexda uga jiraa naxwaha wa fi الsamaaءi risqukum wa fi الsamaaءi samada dhexdeeda risqukum irsaaqaddu waxay idinkaga timaadaa samada dhexdeeda roobkii yaa nooga imanaya roobkii waxaa ku baxaya raashinkii xoolihii caana ku yeelanaya somaha wa fi الsamaaءi risqukum ayib marka fii maxay tusinaya aلdarfiya dhexnimo wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam